isweydiiyey haddana waxay tahay gabadhan ayada miyaa khiyaano wadato sabab ayadoo nin qabo haddana ay nin kale u guursatay maxay tahay meeshaas koleto meeshaas ani waxbaa aan ka fahmay gabadha waxaa laga yaabaa in ay adiga wax adiga meeshaas in wax ugu tuugan yihiin ay ila tahay aniga wejigeed u qarinaysa ayaa waxay tahay dadkii yaqaano sidaysan adowtid u aqoonsanin naagtii la qabay in ay tahay. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oh guys, welcome to another video. Kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Halkan naga daawanaysaan waa Yaska Boy Media. Aniguna waan saaxiibkeen Yaska Boy. Guys, aad u mahadsantihiin sidoo kale fadlan aad ila socotaan YouTube channel-kayga cusub. waan arkay masha Allah sababta badan views far badan masha Allah aad u mahadsantihiin walaalaha qalbiga waan idin wajahal dhamaantiin insha Allah hadaan mashiin wata insha Allah ta'ala fadlan hadii soo galay video like share comment subscribe inta insha Allah kaaga waaye muhiim ah tay like-ta iyo subscribe insha Allah insha Allah isar aad u mahadsantihiin waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo arin in badan maalmahan qabsatay social media ayaan rabaa inaan ka hadlo oo xog badan aan ka soo helnay waxaa jirto arin beriyahan social media qabsatay u dhaxaysa saaxiibkeena ama walaalkeena Kamaal iyo xaaskiisa ayaa u dhaxaysa masha Allah Kamaal wuxuu guursaday gabar la yiraahdo Hani gabarta waxay sheegtay ayada inay gabar tahay balse gadaal wuxuu ku ogaaday inay garab tahay oo la soo furay oo waliba xaas ay ahayd ciyaal ay leedahay oo waliba haatan la qabo ayaa la ogaaday waxay qabsatay arrinta social media in badan ayaan arintaas media ka daawaday balse inta aniga aan hadlin ka hor waxaan rabaa xog aan soo helay in insha Allah aad ila maqashiin socdo wanaagsan insha Allah warahmatullahi wabarakatuh walaalkay Abdusalaam Saali Haashi qofka salaam ay wacdii muumin walaalkay waa maqlay ajalada video waa fiirsaday runtii aad aan ugu xumahay gabadhii Hani qadii qabtida ii sheegtay oo naag la qabay ay tahay oo caruur ay ku hayso shan Allah tabarakeey ma sha Allah marka gabadhan wiilkeen waxay ugu soo sheekaysay idan afkeed ay sheegtay inaan la qabin oo caruurna ay sameeyeen marka oday aabahaada markii la yirin ninka inuu yimid aabaheeda matala aabaheedna yirin aabaheeda ma akiri marka arrintii waa haddaan maqlay maanta sharaal ay soo gaartay sidaada arrintan waxay ku noqotay aad iyo aad u madax xanuun leh waa ka xumahay aad aan ugu xumahay okay waxaa la sheegay markii la mehrinay gabadhan inay keentay nin matala aabaheeda usan aabaheeda ahayn hadda inta ka maqalnay waxay keentay nin aabaheeda matalayo oo aabaheeda ahayn markii mehirka u dhacay markii horeba bayaab waana qalday beena la sheegay kulli marka insha Allah waa arrintan waa hagaagaysa waa kabaali la waaye sanada dhacay meesha qalka meesha ku socdo kulli waa fahmi kartaa kan markii gabadha iskuursanay 4 bilood ka hor ayay ahayd maalmaharkiisa iyo gabadha maalkiisa wuxuu ku dhacay oo si badliga ay ku dhacay si qarsoon xataa muusa ku dhacay maalkeeda sababta marka uu ku ogaa waayay ninka gabadha qabo cadsana lagu magacaabayo sababta uu ku ogaa waayay maxay tahay 6 saac oo cad oo la meesanayo sababta uu ku ogaa waayay maxay tahay ani midaas ayaa garawaayay markuu hadalkan dib ka soo garaarugayo oo hadda dhahayo gabadhan anaaba qabo caruur iyo dhashay ku dhahayo hadan markii intaas ay ka soo safraysay ninka turku ugu imaanaysay sabab oo ku fahmi waayay maxay tahay ani taas ilaa hadda la yaabara oo arrintaas xaqiiqo ay tahay dad haddana sheegayo oo yaqaano oo Sweden la joogo oo haddana maanta arrintaas in ay runtaa sheegayaan ayaan arkay dadkaas waxaa kamid ah محمد بسكوت وحاكمد ويلكا لقصة قلاكه ميديا برو سيدا أتقانين عمران ويلك لبداس وهي لجوغان سويدن أي لجوغان قبدان بهذا سلقاسة أيان ورقانا ويلك قبن ويلي سلقاسة أيان ورقانا عروفة شنتس عرورة إن أي دشنا تاس شكلكم جرتو شنتس عرورة ويدا شيء ولا يا مدة عندنا أسويتي هذا وحيتاي gabadhan ayada miyaa khiyaano wadato sabab ayadoo nin qabo haddana ay nin kale u guursatay maxay tahay meeshaas koleto meeshaas ani waxbaa aan ka fahmay gabadha waxaa laga yaabaa in ay adiga wax
adiga meeshaas inuu wax ugu duwan yihiin ayay ila tahay aniga maanta meesha inuu wax ugu duwan haddana waxaa lagu leeyahay horta social media markii ay muuqaalada ay kamal ay la sameynayso kaamirada ay kasoo muuqato wejigeeda lama arko waa wejigeeda inta badan wuu u xiran yahay maray maas gashan tahay maray insharar gashan tahay waaye haddana dadka inta ugu badan waxay leeyihiin kommentayaasha dad kasoo firceliyey waxay leeyihiin gabadhan waxay isla qarinaysay wejigeed u qarinaysa ayaa waxay tahay dadkii yaqaano sidaysan adoogtid u aqoonsanin naagtii la qabay in ay tahay wallahi arrinta iga yaabisay ayaa midaas wallahi waa yaab arrinta meel u raac waa gara waaye wallahi in xasta arrinta wax baa faraa ku duwan baad runtana isma qarinayso arrintan saan haddii kusii socoto wixii meeshaas ku jiro oo maarkin la qarqarinayana banaanka ayay imaanayaan taas ayaa isqarinayna xaqiiqadana waa la ogaa doonaa laakiin arrinta haddii ay meeshaas ku xiraan waxaa fiican arrinta inay meeshaas ku xiraan waxaan haddii run tahay gabadhan qabo ee run tahay waxaa fiican in arrintan hoos loo dhameeyo baad waayo dhan kastaba sharaf dhac ayaa kaaga imaanaya ma fiicna marka waxaan dhihi lahay arrintan tartiib oo degan ha loo xaliyo social media in la keeno maba ahan laakiin hadda social media way ku bilaabatay bilow ay sheekada taagan tahay laakiin haddii sheekadana sii wadwado ilaa dhammaad ayay imaanaysaa social mediana afarteeda koona ayay ka qabsanaysaa marka xasbunallah wallahi waa arrin naxtin leh oo maxaa waayahay guys aad umahadsantihiin waa maqasheen codad fara badan yarna wuxuu dhahay gabadha marka la meherinayo waxaa imaaday amba ay keentay nin ayada matalaya adeerkeeda amba aabaheeda xafan aabaheeda matalaya ayay keentay sidaa ayaa lagu meheriyey gabadhan waxay leedahay hani iyo kamaal markay isguursanayeen si publiga ay isguursadeen weli maalin 6 saac ay tahay ninkan qawsigu ku ogaan waayo okay oo markii la meherinayo gabadhan qof kasta iskama meheriyo kaliya waxaa meheri kara aabe iyo adeer haddii la waayo kawdhig adeer abowgeeda ama walaalkeeda ayaa meherin karo marka dadka familkeedii marka gabadhan la meherinayo dabcan way joogeen sida la sheegay publiga lagu mehersaday in la qabo way ogaayeen waayo marka mid ay ku dhacday si kasta ay ahaataba gabadha waxay dhahday arrintan waxay wanaagsantahay in hoos loo dhaqo aad u fiican tahay waa wax ceeb ah wax laga yaqsoodo waaye gabadh arrintan oo kale gabar la qabo oo xaas ah oo haddana ilaahay uu siiyay nimco iyo barwaaqo waa caruurtu waa nimco ilaahay ku siiyay waa hadiyad eeb ku siiyay in la qariyo ma ahan ilaahay nimcadiisana in la qariyo ma ahan fahamtay waa in la sheegaa saa ku dhaay nimcadii sheeg ma fahamtayna caruurtana waa nimco eeb ku siiyay ma ahan wax iska helo qof kasta iska helay Soomaan si kasta ay ahaataba arrinta waxay ku fiican tahay in hoos loo dhaqo waa ceeb waa wax laga xishoodo arrintan oo kale dadka arrintan buunbuunay waxaan dhihi lahaa arrintan hoos loo dhaqo gacmo wadjir ayay wax ku yaan lahayd gacmo gel jir hoos loo dhaqaa la yiri ma sha Allah arrintan hoos loo dhaqo kamaal hani ayaan la arrintan hoos u dhaqaa insha Allah iyo wixii markaas family abo sidoo kale waxaa la sheegay kamaal inuu gabar u sixrado xasbunallahu wa ni'mal wakiil sixirku wuu jiraa laakiin qofkii aamin ayaa qadaran Soomaan una qabtaa ma sha Allah si kasta ay ahaataba wixun oo dhacay shimbir wax xun naf iyo shaydaan ayaa loo nisbeeyaa wax wanaagsan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax xun dhacay naf iyo shaydaan ayay ka ahaadeen ana iyo idinkaba inta wax xumaan ka dhacay dib dhaf Allah nasiyo wax wanaagsanna ajirkeeda Allah nasiyo waxaan leenahay arrintaas hoos la dhaqo insha Allah ta'ala marro in wax badan ka sii hadlo insha Allah xog kale ay raadin hadan helna insha Allah sidoo kale waan idin la wadaagi doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu see you again next muuqaal bye bye guys